beerweynta ciidagalo uga fadhinaa in ay ka jawaabaan hadal ka soo baxay Faysal Cali Xuseen. Anagu Faysal waxba ma weydiinayo, waxba lama oranayo, laakiin cuqaasha beerweynta ciidagalo ayaan uga fadhinaa inay ka jawaabto arrinkaa. haddii aanay ka jawaabin waxaanu qabnaa inay la qabaan Faysal Cali Xuseen iyo muxuu ahaa ninkii sirdoonkaasi jira dalka ku soo galay labada ay ku soo galay qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. Faysal waxaan leeyahay qarannimadii Jamhuuriyadda Somaliland ee ka noqonay, qarannimadii miyaynu ka noqonayoo beel uma gudbi karta miyaa aad leedahay taa Faysal ma odhanayaa. Faysal kusii dheeran maayo, waa abtigay xoog uma sii foganayo. bismillahi raxmaani raxiim. maanta waxaan ka hadlayaa kilib yaroo ilaa xalay ilaa habeen hore dhex wareegayay baraha bulshada oo laga soo duubay Faysal Cali Xuseen iyo muxuu ahaa ninkii sirdoonkaasi jira dalka ku soo galay labada ay ku soo galay qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan leeyahay horta waa Faysal waxaan leeyahay abti bulshada reer Somaliland dantooday garatay markii ay la aamustay codkii, waayo waxa systemkaa soo midhan iyo waxyaalaha soo midhan baa kaa soo socday. ninkan kale ee lahaa sirdoon buu ahaayee labada ay watay markii inoo yimi qof kastoo uu la hadlo telefoonka recording ka duubiyey qof kastoo mas-uul ahaa oo uu la hadloba isna waxaan leeyahay ilaahay baa naga kaa qabtay markii codka uu kulmiye dhacay ayadna ilaahayna ka dhaafiyey. labadiinaba waxa bulshada Somaliland uga hiidiyey fartii ummadda reer Somaliland ay codaysay. way poor haddii ay sii jiri lahayn waxyaalaha Somaliland dee maanta uu Faysal maanta madaxweynaha ahaan lahaa dee dadku waa lagu maadi lahaa. qof reer Somaliland ah oo Jamhuuriyadda Somaliland ka tirsan oo la leeyahay intuu Gabriel dhaafay oo Hargeysa dhaafay ayuu ceergaagu dhal ka samaystay waa ayaan dartaas. qofkii reer Somaliland dastuurkaa dhammaan qaaday meel kastoo reer Jamhuuriyadda Somaliland ka tirsan qudheel baan ka samaysan karaa, waan degi karaa, maaha dadku beelo looma kala deganaa, qaran baynu nahay. Faysal waxaan leeyahay qarannimadii Jamhuuriyadda Somaliland ee ka noqonay, qarannimadii miyaynu ka noqonayoo beel uma gudbi karta miyaa aad leedahay taa Faysal ma odhanayaa. Faysal kusii dheeran maayo, waa abtigay xoog uma sii foganayo. laakiin waxaan la hadlayaa cuqaasha beerweynta ciidagale anigoo ku hadlaya magaca siyaasiga beerweynta agsho. waxaan leeyahay waxaanu cuqaal beerweynta ciidagalo uga fadhinaa in ay ka jawaabaan hadal ka soo baxay Faysal Cali Xuseen. anagu Faysal waxba ma weydiinayo, waxba lama oranayo, laakiin cuqaasha beerweynta ciidagalo ayaanu uga fadhinaa inay ka jawaabto arrinkaa. haddii aanay ka jawaabin waxaanu qabnaa inay la qabaan ilaa suldaanka guud ilaa salaadiinta kale dhammaan waxaanu uga fadhinaa beerweynta ciidagalo inay arrinkaa ka jawaabaan. haddii ay la qabaanna inay ka aamusaan. taasi waa mid. waxaan leenahay haddaba anigu waxaan ku hadlayaa magaca siyaasiga beesha anigoo ah xildhibaankoodii hore oo ku hadlaya magaca siyaasiga beesha. waxaan leeyahay cuqaashii beeshuna way hadli doontaa. anigu waan ka soo horreeyo, way hadli doonaa. jawaabtana waxaa laga sugayaa cuqaasha beesha ciidagale in ay ka jawaabaan hadalkaa Faysal Cali Waraabe uu yidhi ay ka bixiyaan raaligelin. sheekh maxamed sheekh Ismaaciil waa nin reer Somaliland, waa nin dhigtoor xanaanada xoolaha ka baxay, waa nin sheekha, waa nin reer Hargeysa ah, waa nin reer Cergaba. dhammaan
reer sheekh macorta waxaad ogaataa faysalow in ay degan yihiin ceerigaabo reer sheekh ismaaciil haddaad akiso ku ogeydun gabiley ceerigaabona way degan yihiin ee qorshaa ku darso mid maax lee meel kastoo jamhuuriyadda somalilan ah waa la degi karaa qof kastoo jamhuuriyadda somalilan ka tirsaday wuxuu degi karaa meel kasta gabiley cid kastaa laga soo helayaa ceerigaabo cid kastaa laga soo helayaa waay ma beelabeelaa degmooyinka iyo gobollada loo kala degan yahay arrinkaa kuma noqnoqonayo arrinkaa waxaanu uga fadhinaa beelweynta cuqaasha ciidagale ayaanu uga fadhinaa oo aanu sharaf iyo karaamo iyo maamuus buu ka ogeyn inay arrinkaa ka joogo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu